حسن xilligiisii hore dib u akhri wax yar waa ninkii jigjiga tagay ee yiri dagaalkii 77 khalad uu ahaa wixii ku dhintana Soomaaliya ku gartar waa kii Cabdi Ilay la dhaanteynay waa kii nimanka xaq dirarka ah yani u dagaalamay xuquuqdooda ogaadeenaya ku yiri waa argagixiso ubba iyo wax ku sheegay waa duubantahay anigu waxaan dhahay ma marka Xasan iyo Ethiopia maamulka Ethiopia ka jira waligoodba wax colaado kama dhaxayn marka la fiiriyo aragtida hadda aad sheegto madaxweynuhu uu qaato ah in ay Ethiopia dawladda diidanay laakiin ay tahay inay sharci soo marto madaxweynuhu wuxuu dhahay sifo sharciya oo dalalka darisku ay ku gaaraan badaha aysan ayagu lahayn aan u ogolnahay taas oo ah in maamul goboleed aan loo soo marinayo dawladda federaalka ee mandate kale ee heshiis gelin karta in la soo aado artaas waa soo marin karo mar raba dawladda federaalka xaqo mala dal Soomaaliyeed Ethiopia waxay u socotay dekedii ka shaqeysatay ma ahayn hadaba berbera waa ka shaqeysan jirtay Ethiopia warka waa cad yahay waana tan shalay hadda ciidamada badda suubsatay waana tan uu salaanta ka qaadanaya Xasan waxa meesha fiiraha ligay oo yani waxay dadkii dagaaladii ay nala galeen dadku uga laaday ayuu Xasan u baxdhigay marka anta naga deysid marnaba Xasan ma sameyn kariyo oo awood uma laha inuu dal Soomaaliyeed saxiixa Ethiopian iyo American midna siiyo qof si kartaana ma jirto haddana waa u jeednaayo in Xasan isdhiibo aragna oo wuxuu noo sheegi jiray iyo cadawaan leenahay iyo cadawgeena waayay dadka Soomaaliyeed yeeli maayaan iyo wada dagaalamayna wixii dhan muxuu ku bedeshay inuu isdhiibo سيال ودينا لكن ما وحنا شقين دون دتك Soomaalidu wali waa joogan Xasanna uga mas'uul ma dalka hore inuu dhiibo Ethiopia waxay ka laabatay Ankara ma hayno meel official Ethiopia soo baxay ay aqriyeen ayaan dadka la khaldeeda ku jirta adiga aan ka sax anaga ma hayno wali MOU-gi code 4 January ma code January waxa soo baxay ma qaana sanadka 2003 meel Ethiopia ku beenisay oo tiri waa ka noqonay sida dawladda Soomaaliya shuruudadeeda waxay ahayd ayadoo ka noqon inay la fadhiyo khiyaanada koobaad bataasay Xasan wuxuu dhijray tiimkiisu Ethiopia la fadhiisan mayno ayadoo ka noqonin MOU-gi meel ay u noqoto ma haynaan waxa lagu sheegay baaq Ankara in labada dawladood ay masaxaan wix la isku hayay waxa la rabaa marka warku waa cadda Ethiopia warkeeda waa cadda oo dokumenti u gaarsiisna la kala saxiixday وبدأ الصومالي كسوقلس الصومالي وركر وعدا إن أنا لفت لسنة إثيوبيا إلا أي شيء official أو نقطة باقي أنكرة وضدك اللي قلنا السرعادي واللي هاي وحلا احترام محبنا هذا الصومالي محبنا الصومالي يكون سجال باللحظة كي على أقون صدق إثيوبيا نو مبهنا متكلوا هذا مالك الجوج أنكرة جوج نو مبهنا كلمة اللي قليو إثيوبيا وحي أقون سنة محبنا هذا الصومالي محبنا الصومالي إثيوبيا مرتلوا يا جماعة كون سجال باللحظة كعالم كمن نقرني marka qodobka noocaas oo mid meesha ku jira ma aha mid la isku hayo Soomaaliya xor ma aha Ankara looga hadlayo